هذا بعاوة أما وقت حاضر كان أداونا سان وحن كسو قادة دونا حركة وين سرنجيتي أو كوي على بريغا أفريكا سرنجيتي وقوب داقة هضن كو runtii ay ku nool yihiin xayawaano aad u tiro badan oo kala duwan hadaba khiyaare barnaamijkan waxa ay kala qayb qaata Axmed Naasir waxaan idin soo tabinaysaa aniga oo ahna dirasooyaan dhanka hagida kamarada iyo farsamadaba si hagarlaana waxa inoogu helan Cabdisalaan Maxamed dhanka habeentana waa Maxamed Xanan inta aan barnaamijka idin ka hordhicin waxaan jecelahay inaad wada daawataan daawasho wacan waxa jira goob dhulka kamid ah taasoo wali nolol kala duwan ay ka jirto nolosha ka soo burqata dhulka gudihiisa marbay dhamaataa socdaalkii ugu dambeeyay ee xayawaankii ugu badnaa ee abid iskugu yimaada waxa ay iskugu yimaadeen xidhka weyn ee Serengeti oo ku yaala bariga Afrika muddo aad u fog xusuusta bini'aadamka buurihii bariga volcano ayaa ka dhacay wayna dhamaadeen waxaana samaysmay dhul dambas ah kaasoo qariyay dhammaan Serengeti dhulkaasoo ka koobnaa haraagii waxyaabihii gubtay muddo laga joogo 4 milyan oo sano waqtiga iyo cimiladu waxa ay dambaskii u bedeleen carrasan meeshii xumaydna waxa ay maanta tahay meesha ugu muhiimsan ee nolosha xayawaanka dhulku wuxuu u muhiimsan yahay sida uu u qurux badan yahay waxaana ku nool malaayiin makhluuq oo kala duwan wali noole kaliya ayaa ka muuqda waa noole malaayiin jeer ka xoog badan loogisida waxa ay haysaa nolosha noole aad u badan waxay u muuqdaan waxaan lagu ciyaari karin sidoo kale waxa loogu yeedhaa ama lagu yiraahdaa naxariista xidhadhka Afrika balse xayawaanku waxa ay ka dhigtaan majaajilo laakiin loogisidu waxa ay ku nooshahay nolol ku tiirsan socdaal aan dhammaanayn iyada oo raadinaysa caws iyo biyo sidoo kale waxaa jira xayawaano kale oo dhirta cuna dhammaantood waxaa haya dhulka weyn ee Serengeti ee daaqa hodanka ku ah mid kasta waxa uu raadiyaa cunto ka gidisan ama ka duwan kan kale qaar waxa ay nolosha 3 meelood 2 ka mid ah ku bixiyaan daaqa qaar waxa ay fursad u heleen meel daaqeed khaas u ah isla egta malooleed ee Serengeti aad ayay u fududahay xayawaanka daaqa cuna waxa ay quutaan dhirta kuwa hilibka cunaana waxa ay quutaan xayawaanka dhirta cuna libaaxyadu waxa ay ugaarsadaan ka u dhow iyo ka fog labadaba xoolaha iyo duurjoogta kale inkastoo libaaxyadu wax ay wada dilaan waxa ay hadaba cunida marka ugu horeysa lagu shafraa waa aarka weyn ama aarka ugu weyn kuwa gaajaysan wareegooda ayay sugaan goosha ayaa ku xiga kadib waxa ku sii xiga dhurwaaga hadana sidoo kale waxa ku sii xiga waa gorgorka
Serengeti waxba lama khasaariyo. Dabayaaqada xilliga dooga ah waxa ay ku noolaadaan cawska Serengeti, laakiin dhammaadka bisha May waxaa dhaca abaara xayawaankuna waxa ay bilaabaan socdaal. In ka badan 2 milyan oo xayawaan waxa ay u tahay tartan orod oo ay kaga baxsanayaan gaajada iyo oonka. Sida ay ugu badan yihiin webiyada socdaalkan waxaa ku jira dameer farow iyo deero. Waa la waayay cawskii iyo biyihii hodanka lagu ahaa. Waxaa la dhowray galbeed iyo bari, waxaana bilowday socdaalkii ugu ballaadhnaa. socdaalkan la yaabka leh wuxuu ka dhacay 2 qaran oo ku yaala bariga Afrika, Kenya iyo weliba Tanzania. Duurjoogtu waxa ay ka soo qaxeen waqooyi iyaga oo ka soo tegay xidhadhka Masai Mara ee waddanka Kenya. Kadib waxa ay wareegayeen bilo ilaa intii uu roobku ka soo laabanayay. Waxa ay mar labaad ku soo laabteen dhinaca koonfureed. Socdaalkan waxaa la socday in ka badan 500 oo mayl. Toddobaadadii ugu horreeyay ee socdaalkan waxaa lagu jiray nolol aad u qoyan. Dhammaan waxa ay u kululaayeen dagaal ay la gelayaan deegaanka iyo kuwooda dhadiga ah. dhowr toddobaad la ogisida 90% waxay ahaayeen kuwa ilmo sida. Waxa ay duurjoogtani heshay dhul cusub ah oo aad u barwaaqaysan. haddase waxay aad uga cabsanayaan xayawaanka iyaga cuna. waxyaabihii yaryaraa ee halkan ku noolaa dhasha haramacadka oo keliya ayaa ka sii nool. Si ay u sii noolaato hooyadeed waa in ay maalin walba wax u soo dishaa. Laakiin hadda 2 cisho wax maysan cunin, iyada oo xaalku aad uga xun yahay. waxaa soo muuqday golcas aad u badan. fogaanta intan leeg ee u dhaxaysa awgeed malaha wax ikhtiyaar ah. haramacadku waa xayawaanka ugu orodka badan ee dhulka dushiisa socda, waxayna ku socotaa xawaare ah 70 mayl saacaddii. haba yaraatee ma jiro wax asaxaan ah ama naxariisa. ugaarsaduhu waxa uu wax u dilaa si uu wax u cuno, wuxuuna u qaraabtaa laf ahaantiisa. waxna intaa kama soo hadho. joogtii soo socdaashay ee ka timid abaaraha iyo oonka waxa ay halkaa ka noqdeen daahfurayaal. waayo waxay halkani hooy u ahayd xayawaan kale. xayawaankii sii deganaa halkan waxa ay ku mashquulsanaayeen danahooda maalmeed. waxa keliya ee dhibayana waxa uu ahaa kala sarraynta dhulka. haddaba si ka duwan la ogisida, gerigu ma uusan socdaaleen. waxayna qodanayeen geedo badan oo iyagu ah kuwa abaaraha u adkaysta. daanyeerkuna wuxuu isna geedaha u isticmaalayay badbaado iyo weliba hooy labadaba. daanyeerka noociisa loo yaqaano Savannah baboon waxa ay ku noolaayeen nolol degan, iyaga oo habeenkiina
geedaha fuulayay iyaga oo wax u guranaya sideenoo kale waxa ay quudan jireen ku dhowaad wax kasta oo ay arkaan caadiyan daanyeerkan laboodkiisa waaweyn xataa waxa ay quudanayeen golcasta yaryar quudayaasha cawsku waxa ay keenaysaa inaan joogsi lahayn u daawadaan xayawaanka hilibka cuna laakiin waxaa weli jira hal xayawaan oo dhirta cuna oo xataa libaaxu uu ka cabsanayo maroodiga weyn waa mid ka mid ah xayawaanka Serengeti ee ugu tirada yar kaasoo wax cadow ah aan ku lahayn duurka isagoo oo difaacaya dhashiisa maroodigu wuxuu aad ugu soo dhawaadaa ilmihiisa xiriirka ka dhaxeeya hooyada iyo ilmaheeda waxa uu ka dhamaadaa ku dhowaad 50 sano loogisidu marmarka qaar waxa ay socotaa habeenkii iyada oo khatar gasha mugdiga jira awgiis waxa ay socdaalaan ku dhowaad 50 mayl oo xilliyada mugdiga ah hadda abaartii way laba jibaarmatay dabab ayaa kacay oo wax qalajiyay dab cawseed ayaa ku baahay xidharka Serengeti iyadoo arlada ay qasaadeen dab iyo dabayl waxaa aad loogu baahnaa dhul cusub ah waqtigan la ogisidii raadinaysay dhul cusub ah waxa ay la kulmeen boodh oo keliya hadda cadowgu way ooman yihiin gaajaysan yihiin yaaban yihiin oo waa ay wareersan yihiin dhinaca kale la ogisidu waa in ay socdaalkeeda wadataa ayna dhex martaa kaynta iyadoo oo suurtagal tahay in libaaxu uu istaago meelaha bannaanka ah ee kaynta sidoo kale ugaadhsaduhu waa inuu wakhtiga ka faa'iidaysto noloshan ikhtiyaar la'aanta ah waxba lama damaanad qaadi karo xilliga maalinta ah hal libaax oo keliya waxa uu ugaadhsan karaa 5 lo'gisi ah ugu dambayntii bilo badan oo socdaalkan lagu jiray waxa ay duurjoogtii timaaday xidharkii barwaaqaysnaa ee Masai Mara ee waddanka Kenya waxaa intaa dheer nasiibkoodu waxa uu keenay goobo cusub ah halkan waxa ay daaqi karaan bilo ilaa inta barwaaqadoodii ay ka soo laabanayso dhinaca bari meel aad uga dhow Serengeti waxaa ku taala goob ka sii barwaaqaysan oo ah mid ka mid ah dabiiciga ugu la yaabka badan adduunka Ngorongoro waa volkaano aad uga weyn taasoo samaynaysa 100 mayl oo isku weeran asalkii qaraxyadii aas-aasay xidharka Serengeti laga soo bilaabo xidhka daruuraysan ilaa geeska koonfureed waxa ay ka kooban tahay dhul aad u barwaaqaysan kaasoo leh xidhadh aan la taaban meesha ay biyo jiraan waxaa jirta nolol
jeertu waxay xaaska iyo bini'aadamka u dili kartaa hal qaniinyo markaa weligeed looma imaan jirin jeerta iyo weliba deegaankeeda ay ku leedahay Serengeti kumanaan xayawaan ayaa halkan ku nool waxaana ka mid ah kuwa ka soo socdaala cirka sida shimbarbadeedka flamingo si la mid ah xayawaanka kale ee dibadda kaga yimaaday xidharkan lo'gisida iyo dameer farowgu waxa ay u baahan yihiin daaqa oo keliya khatarta ku xeeran halkan ama meel kale awgeed dameer farowgu waxa uu iskugu aruuraa hal meel isaga oo ku wareersan xayawaanka hilibka cuna waana nooc ka mid ah xayawaanka Afrika ee aan weligiis la rabaayadeynin jeerta madow waa xayawaan aad u weyn si weynna looga cabsado Serengeti dhexdeeda waana mid u muuqata in ay ka soo jeedo kuwa hore oo aad u dabargo'ay xidhka Ngorongoro waa mid ka mid ah meelaha tirada yar ee jeerta madow ay ku nooshahay daanyeerka noociisa loo yaqaano Pampoon maalinta badideed waxa ay ku dhaaftaa ciyaar qaraabsi iyo weliba bulsho u noolaan inkastoo aarku ay tahay inuu difaaco deegaankooda u kicidda ugaarsiga iyo weliba korinta dhasha waxaa iska leh goosha waxaana dhasha lagu barbaariyaa ciyaar awoodda badan ee libaaxa waxa ay ku xidhan tahay nasasho aad u fara badan waxaaba dhacda marmar uu 24 saac nasasho uu ku jiro hase ahaatee marka libaaxyadu ay kulmayaan waxa ay kulmaan 15 daqiiqo oo kasta maalin iyo habeen iyagoo oon kala joojin 3 ilaa 4 cisho dhulkani sidoo kale waa aasaaska bini'aadanimada dhinaca bari ee Serengeti meel aad uga dhow Ngorongoro waa mid ka mid ah goobo taariikheedka ugu caansan adduunka waxaana laga helay lafo bini'aadam oo jiray ku dhawaad 2 milyan oo sano maanta dadka Masayga ah ayaa halkan ku nool waxa ay ku nool yihiin nolol reer miyi ah iyaga oo caws wanaagsan u raadinaya lo'dooda Masai waxay aaminsan yihiin inay leeyihiin lo'da adduunka joogta oo dhan waxaa tan u sii dheer cunto ayay ka samaystaan dhiig iyo weliba caano la isku daray xilligaasi ugaarsiga
waxaa la odhan karaa weli waxa uu ka sii jiraa dadka Masaayda. Halkan iyo weliba tuulooyinka u dhow weli noloshu kama hor imanin, iyaga oo mar ahaa dagaalyahaniintii ugu cajiibsanaa bariga Afrika. Masaaydu weli waxa ay ku tiirsan yihiin lo'da, iyo qoysas qaar waxa ay ku nool yihiin Serengeti, qaarna waxa ay tegeen maanta socdaal bini'aadam oo aad u ballaadhan, kaasoo ka yimid dunida iyaga ka baxsan oo dhowraya duurjoognimada halkan ka jirta ayaa yimaada. Tansaaniya iyo Kenya waxa ay leeyihiin dhul aad u ballaadhan oo beero xayawaan ah, taasoo ay ka sheegaan inay yihiin hiddaha dhammaan bini'aadamka. Taageerada dalxiisayaasha ayaa qayb weyn ka qaadata sii jiridda dhulkan taariikhda leh, kuwaasoo Serengeti ku xidha indhaha caalamka. Nolosha Serengeti waa ay isbeddelaysaa, waxaana sii kordhaya dadka imanaya, laakiin tani sidoo kale waxa ay u tahay sharaf. Maroodiyaashii mar la waayey ayaa soo laabtay, waxaa yaraatay dhibkii ay xayawaanka hilibka cunaa ay ku hayeen kuwa dhirta cuna. Tirada xayawaanka ku nool Serengeti way sii laba jibaarmatay. Masai Mara waxaa ku soo dhowaaday duufaankii Oktoobar, markii roobkii soo laabtayna duurjoogta waxa ay sii wadayaan socdaalkoodii ballaadhnaa, waxa ayna u kacayaan dhinaca koonfur oo leh daaq iyo biyo. Laakiin si ay tan u sameeyaan waxa ay wajahayaan caqabadoodii ugu ballaadhnayd. Si ay u gaadhaan koonfur, duurjoogtu waa in ay ka gudubtaa webiga Maro oo hadda ay fatihiyeen roobabka. Biyahan waxaa ku jira yaxaasiyo waaweyn, kuwaas oo si weyn u ugaadhsada.
kuwa badan ma aysan ka badbaadin yaxaansiyadaasi. qaar waxa ay ku dhinteen webiga laf ahaantiisa, qaar way bixi waayeen, qaar way jajabeen, qaarna aad ayay ugu adkaatay inay naftooda badbaadiyaan. sanadkii socdaalkii ballaadhnaa socday, malaayiin lo'gisi ah ayaa ku dhimatay, laakiin socdaalku ma istaagin ee waxaa loo sii socday dhinaca koonfureed, iyada oo ugu dambayntii loo soo laabtay dhulka mucjisada ah ee ku yaalla bartamaha Serengeti. xayawaankii badnaa ee socdaalay waxa ay keentay in ay xayawaan badani ay dhashaan. toddobaadadii ugu dambeeyey ee xilliyada qoyan, ku dhowaad nus milyan lo'gisi ah ayaa dhalatay, kuwaasoo khatar weyn ay ku haysatay xayawaanka hilibka cuna. si ay ugu dhex noolaadaan xayawaanka waaweyn ee hilibka cuna, dhashan hadda dhalatay waa in ay ku istaagaan daqiiqado yar dhalashadooda kadib. kuwa awoodi waaya in ay istaagaanna waa in la cidleeyaa. si kastaba ha ahaatee, Serengeti nolosha ayaa ka awood badan dhismayaasha. kuwii weli adduunka ka sii hadhay ayaana nolol raadinaya. duurjoogtuna weli waxa ay u ordaysaa si xor ah. hagaag daawadayaal, waxaan filayaa inaad si aad uga wada bogateen, wax badan aad ka faa'iideen. intaas waxaynu uga ekaa barnaamijkeena raadraac. waxaan idin socodsiinaysay anigoo ah Nadira Sooyaan, waxaana igala qayb qaadanaya Axmed Naasir iyo waliba dhanka kamarada hagida iyo waliba farsamada oo inoogu heelan yahay Cabdisalaam Maxamed. barnaamijkan dhanka habeentana waxaa inoogu heelanaa waa Maxamed Xanan. waxaan idin socodsiinaysay anigoo Nadira Sooyaan. inta aan barnaamijkan mid lamida aan ku kulmayno waxaan idinka tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.